xiriirlaalinta guud ee Somaliland ayaa markii ugu horeysay waxay soo saartay warqad ay ku qoran tahay eedaha loo haysto wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ku dhawaad 2 bilood ku xidhan jeelka weyn ee magaalada Hargeysa. xiriirlaalinta ayaa waxay sheegtay in wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon uu ka soo horjeestay qarannimada Somaliland iyo in uu sameeyay warar been abuur ah oo khalkhal gelinaya nabadgelyada Somaliland. sidoo kale eedaha ay xiriirlaalintu sheegtay ee wariye Coldoon loo haysto ayaa waxaa ka mid ah inuu taageeray madaxweynaha dalka Soomaaliya Mudane Farmaajo iyo in uu ku dhawaaqay midnimada Soomaaliya. haddaba garyaqaan guuleed Axmed Jaamac oo ah qareenka u doodaya wariye Coldoon ayaa waxa uu ka jawaabay eedaha ay xiriirlaalinta Somaliland u soo jeedisay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon. Coldoon oo la kulanay aniga qareenka kale Maxamed Abukar wuxuu qabaa inaanu isagu Somaliland waxyeelo ku ah tahay qarannimadeeda haday tahay nabadeeda aanu marka ku kicin oo wax falo uu geystay oo waxyeelo ku ah aanu jirin sidoo kale wuxuu qabaa inaanu jirinin faldambiyeed shuruucda Somaliland u yaala ka soo jeeda oo galay mana jirto madaxweynuhu Afrikaada ama ay u geystay oo maraba mu soo hadal qaadin oo ay laftigeeda kuma qoraba sidoo madaxweynaha laftiisa uu wax uga sheegay marka eedaha la baahiyay xiriirlaalintu ay ku soo eedeysay Cabdimaalik wuxuu qabaa inaanay ahayn kuwa sal wuxuuna diyaar u yahay maxkamadda horteeda inuu iskaga difaaco oo uu cadeeyay inaanay jirinin maagtay wax faldambiyeed oo galay. dhinaca kale garyaqaan guuleed Axmed Jaamac waxa uu sheegay in aanu jirin xeer muwaadiniinta Somaliland u diidaya in ay taageeraan madaxda kale ee wadamada caalamka iyo in ay tagaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. horta dastuurku dadka wuxuu damaanad qaaday inay fikiri karaan oo ay aragti yeelan karaan oo dadka aragtiyahooda lama xukumi karo. Donald Trump iyo Hillary Clinton markay tartamayeen dadku way kala taageersanayeen Soomaaliya lafteeda dadku kala aragti duwan yihiin dad wax nacab iyo wax taageero weeyay marka meel buu ku oleeyay Cabdimaalik oo uu yiri siyaasad ka galay ma jirto marka qofkuna aragtiisa shakhsiga ah waa xor marka ma jirto qodob sharci ah oo Somaliland samaysatay xeerka lagu qaadayo Cabdimaalik waxa la sameeyay 1962 Somaliland waxa lagu dhawaaqay 1990 marka xeer Somaliland ay samaysato u gaaro ay leedahay dadku xamar ma tagi karaan madaxweynayaashooda ma soo hadal qaadi karaan ma jirto hadii doonayso inay waxyaabaha mamnuucdo marka hore xeerka samaysata marka xeer samaysatid kadib baa dadka la yiraahdaa xeerkaasan kugu qaadaya marka xeer u yaala Somaliland oo ciqaabeed khuseeyaaba ma jiro xeer ciqaabeedkan dalka lagu dhaqaaqo xeerkii Soomaaliya marka xeerkii Soomaaliya 1962 kuma qorra waxyaabaha caynkaas oo kale Khalid Fodadi Sab TV Hargeysa.